ujeedada munaasabadan ayaa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda ama da'yarta Soomaaliyeed ee wax ka barata London gaar ahaan xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka lagu magacaabo Hounslow Somali Community oo fadhigoodu yahay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London. ururkan oo ah urur alaaba ka shaqeeya ama u taagan sidii wax uu qaban lahaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhiirigelinta da'yarta soo koraysa. waxaa ka soo qayb galay munaasabada qeybaha kala duwan ee bulshada oo isku jiray waalidiin, macallimiin, xildhibaano iyo waliba ardayda wax ka barata qaar ka tirsan iskuulada London. intii munaasabada ay socotay ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay majaajilo, gabayo iyo waliba documentary ka turjumayay sidii da'yarta loogu dhiirigelin lahaa waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo waxbarashadooda ka hor imaanaya. dadkii halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, boys and girls, distinguished guests, welcome to Hounslow Somali Community's first annual Achievement Award. My name is Waris Duale, and this will be my co-host for the night, Mohammed Deria, Asahaaf. Maxamed Waris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marshal qiimaha qaayale waxa ku soo wataan xafladda dhalinyarada Hounslow Somali Community. Rajacnahay caawa in aynu kuga helno waxyaabo kala gedisan hadiyadii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So the first in our program is, he's also known as the founder and the chairman of Hounslow Somali Community. He's going to be talking to us about how HSC has started, its progress and where we're heading to. So I want everybody to give a warm welcome to Samata Dalal. We'd like to welcome you all to our first annual Achievement Awards. And we celebrated our first year of HSC, and we'd like to begin our award ceremony. Hounslow Somali Community works in partnership with local businesses, education establishments and charitable trusts, and we are aiming to recognise achievements throughout the year. This Achievement Award ceremony is aiming to highlight the positive contributions made by young people like yourselves within our communities, through a variety of opportunities offered to them to develop their social, personal and educational skills. We would like to take this opportunity to thank you all for your support. Please enjoy the evening and celebrate with us the achievements and talents of young people at Kingsley Academy. waan idin wada salaamay walaalayaal dhammaantiin si sharaf leh waqtigeena qaaliga ah aad maaragtay na siiseen maanta farxadan ardayda Soomaaliyeed ee ku guuleysatay waxbarashada waliba qaarkood ay ka gaareen meel heer sare ah. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo dhalinyarada ila shaqeysa inaanu qaban qaabin xafladatan inaan hore loo qaban qaabin ay tahay tii ugu horeysay aanu isleenahay mustaqbalka dambana sanad kasta tan oo kale in la sameeyo maadaama uu iskuulka kaliya uu yahay sanadkan waxaanu jecelnahay idinkuna aad ogaatii iskuulada ay ardaydiinu dhigato waanu iyagana xiriir adag baanu la yeelan doonaa sidaas oo kale waxaanu samayn doonaa xafladan oo kale ama waxaanu ka wada dhigi doonaa jamac dhammaan iskuulada oo dhan intaanu meel isugu wada yeelna ardayda dhinaca GCSE iyo A-levelka iyo kuwa dhinaca ciyaaraha heer sare ka gaaray inaanu maaragtay hadiyad abaalmarin qiimo la wada siino aan walibana ku darno waalidka gadaale in ay ardaydoodii noqdaan ardayda is anfacda mustaqbalka dambe insha Allah taala. marka haddii aan idin yara taabto ma aragtay ururkani waa fikrad cusub oo ay isku dubarida dhalinyarada xaafadatan ee ku beegan galbeedka London oo ku magac dheer degmada Hounslow ama Hounslow Borough. marka laga eego dhinacyo badan ay ka mid yihiin dadka u doonay inuu u adeego
ururkani waa kii ugu horeeyay golaha Hounslow noqon doonana kii ugu wanaagsanaa si uu dadka dhan jamac uga wada dhigo baahidan aanu qabno inaanu iska abuurno inaanu noqono dad isku duuban aanu ka talina midnimo qarannimo qofkii khaladkiisa la tuso qofkii saxsan la raaco ra'yiga fiican la qaato wixii dhibaato inoo keeni aanu iska ilaalino qofkii liita la gacan qabto oo la garab siiyo insha Allah tacaala annaga iyo dhalinyarada go'aankaas iyo horumarkaas ma gaari karayno idinka ayay idinku xiranta inaad taageertiin because ummadda hal qof baa u soo kaca halka qof wuu daalaya haddii uuna helin taageernimo badan oo waliba si saa'ida idinka ayaa la idin baahan yahay imika annaga idin baahan laakiin mustaqbalka dambe idinka noo baahan doona sababtoo ah dhibaatadan idin haysata hooyo waxaa jirta imika caruurteedii iskuulka laga soo eriyay ama caruurteedii dhib lagu hayo laakiin meel ay tagta garan la luqadii baa ku xun ama maba garanayso maba fahmayso waraaqaha loo soo diro meel ay tagto ma garanayso mustaqbalka dambe cunuga yar iskuulkii baa laga eriyay isagoo imtixaankii weynaa diyaarinaya waa waxaan u adkeysan kari waayay ardaydeena waxbarashada xagga hoose ayay maraysaa maanta waxaan isleeyahay hal la arko inaanu awood leenahay aanu horumar gaari karayno haddii aanu istaageerno aanu iska ilaalino waxyaabaha xun aanu qaadano waxyaabaha fiican si aanu dadkeena u noqdaan dad horumar u gaara isla markaasna aanu ku dadaalno ardayda Soomaaliyeed imika soo socota oo ah mustaqbalkeena dambe si ay u noqdaan dad is anfaca. Can I thank first of all Senator Duale for inviting us, especially me, the leader of the council, our MP, and a couple of my colleagues as well, cabinet member Sue Sampson and ex-colleague cabinet member, ex-cabinet member now actually, Councillor Ruth Cadbury. Thank you very much, and thank you for all the hard work you're doing for the community as well. And I know we worked one project last year as well when we did the fundraising. I'm not going to say a lot of things, but I'm just going to say one thing tonight, is the role models. I think all you students done your community proud, your parents proud today, because you all got the prizes, or some of you have actually got excellent stuff, done excellent studies, and you're going to get loads of prizes today. But now, name one role model in your community you will go with. The biggest role model for your community. Excellent. Last summer was just such an exciting summer, and there were so many amazing achievements, and of course for us in Hounslow and for you the most important person was Mo Farah, but across the world people came and competed at their very, very best, and the taking part was as important as the winning. And as a result of that, many young people and adults started taking part in sports in Hounslow. There are two words I'm going to say that just sums up everything. One is aiming high. All of you, wherever you are, aim high. Make sure that there is something for you to achieve. So that's most important in life, and this is what our vision for in Hounslow. That's what we want to achieve for everybody. When I say aiming high, it's for everybody wherever you are. Children in schools, youngsters in colleges, universities, and people at work. Wherever you start, you have to go up. Education is very important wherever you go. I was educated in my country, in India. I came here, I had ambition. I had high aims. So I came here because the education in this country, in the universities, is the best education in the world. There are good universities, and you can, with confidence, go anywhere, and you can feel that, yes, I'm going to achieve here because I have been to the best university, and I worked very hard there also. If you don't work hard, you're not going to achieve anything. And it's really wonderful to be here and to be here with all of you, to see more and more of you coming here into the evening for what is an engagement event, but also what is recognising the talent and really the hard work
of the younger generation in the Somali community in Hounslow. And I just want to say a couple of things. Firstly, to say that we are incredibly proud of you. We're incredibly proud of your achievements, all of you. And you can see from the parents behind and from the community that's here that the achievement that you made for yourselves is an achievement for Hounslow as well. I see a lot of teenagers that talk so much nonsense, and I just wish one day they could walk in the path of those other Somali children that are suffering in back home or Kenya or Ethiopia or anywhere else, because our country at the moment is not stable. So what I want to say to you is, my beloved youngsters, please appreciate the chance you have. Work hard. Don't let this "I'm Somali, I'm black, I'm a Muslim" stop you. That's not an excuse. You are Somali for a reason. You are Muslims for a reason. That alone should make you succeed better than anybody. Aim higher. Don't aim for Brunel or for Westminster University. Aim for Oxford, Cambridge. Aim for Harvard. Something very, very important to us, that it doesn't matter what your background is, it doesn't matter where you come from, you all become part of this bigger family. And what works for us is that we are highly harmonious compared to many, many places, not just in the world, but in London and in England. As an academy, as a school, we care about each other most of the time. What I wanted to say to our students, you are amazing, bright, shiny stars. And I sat there this evening feeling immensely proud of all of your achievements, because you know what? In the busyness of a school day, we don't get to tell you often enough not how great you're doing, because I've seen some of you really grow. Because I can remember the naughty ones that are constantly being told off, but it's also really good. And also, I have to say to my Somali sisters, the mothers, how good it is to embrace you and say, look, we told you that they would be okay with you. But around you, students, you've got this whole community here. You've got the love of your teachers, you've got your friends, you've got your brothers, your sisters. Embrace that, because all of us want you to succeed. That's the really, really important thing. So young people here today, it is about making sacrifices to secure the best results and give yourself the best chance in life that is possible. For many of us within our communities, the odds are stacked against us, and we have to work 10 times harder than our counterparts in other communities, and we know this. So we need to start making sacrifices. It may be the social networking that needs to be sacrificed. For some of my Year 10 students who are sitting here, it may be friendships that you need to sacrifice and say, look, I'm not going to go along with my friends. I'm going to travel this road because I know it's going to lead to success, and that's where I want to be. And like the marathon runner, in closing, I'd like to say that the race that we are running is not for the swift, but for those who endure to the end. Thank you very much. maanta eventkan dhacay oo qiimaha badan waxaan ugu soo galay anama saaxiibahayga oo ii imi oo ugu yiri kaale ka soo qayb gal aad iyo aad baan ugu mahadsanahay dadkii imi maanta waa maalin laga farxo dhalinyaradeeni waa maanta siinay amaan birin waxaan siinay awards badan oo ma sha Allah saasna yukunu ku dadaalayaan oo dadweynadii waliba joogtay dadweynadii oo hooyaashii aabiyaashii joogay insha Allah yakana waan xandoonayna inaan support gareeno HSC Hounslow Somali Community wuxuu furan tahay dadka oo dhan maantana waa maalintii ugu horeysay inaan laga bilaabo ma sha Allah imikana anigu waxaan soo kacay tixgabaya oo aan doonayo kaga hadlayo ardayda iyo sida maaragta xaaladahan waddanka ka jira imika dhegeys wacan
dibnoo gabayaqaana murtida dibnoo gabayaqaanaba la dayina baraaye dibnii gabayaqaanaba la dayina baraaye ودي وانذي تمادنا دادار رأيه أنا دريت ليسي مرتدا ضد ما صلايه مرحبا ترينك يا برشادو دايماي وبغلي يا تلا دوريسين ويدين دغسيني ويا تلا دوريسين ويدين دغسين إذن دبولada dhegada uga qaada idinkuna daboolada dhegada uga qaada dayartuna haqaybeenana duruucda gaadsiino danaheena guud iyo haddaan dakhilka u dhacaaye dalkana tacliinta ugu mudan dowladii yurub dalkana tacliinta ugu mudan dowladii yurubo la dhanbay degeentan galbeed doolkii soo galay la dhanbay degeentan galbeed doolkii soo galay dugsigiiyo duruusahana waynoogu deqeene ardaygii dadaalana digrii duhurka loo dhiibye warbuuxdaba marteeyadoo cilmiga dona laga waayey haddii uu daraatiyo shalay dub la haari waayo imtixaanka kuma diirsadee dib uga somag imtixaanka kuma diirsadee dib uga somagye dhallinyaroy dariiqyada qaldani kuma taageeraane inta darsaniyo saadidkana wou damqaanayaayo hadday xumaa haddayaaniyaba wayta beerayaane war maantaba haddaahine waqtiga doorka ka ciyaara weli maanta baarine haraamo durkeenayaaye weli maanta baarine haraam si durkeenayaayo daqaarada afkooda iyo dhulbaan dogta ku ogaaye dadka waalidiinta wacdiga wou dulmaarayaaye dagaal baa ubiila uu salliday dumiyeen heriyo dugmo iyo qiraab soo dhex galaa kama daawogaano dalqayaa kuwii kalaa gurtiyo raski deegi waayey dayaacbay dhashoodiyo mutan dihaashaadoodiyo dambiil iyo daraag lagu xidhay daraqyedhahaano inta jeelka daadi isku xidhaan loma dirnohoe duruufadaagi duldamaa xunbay dabaqaadisaaye dalhun cayow haddaan kaaga digo dalhun cayow haddaan kaaga digo kuma dooganayne ummad yahay waxba doogaye yala daaron ummad yahay waxba doogaye yala daarono dayino lamahado ina daaficiye wadiintana ilaashada dhulka kale hawdilaamina السلام عليكم waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan barwaaqa gaarne barqadi ninkii baar fariisto
beeniya sheeka baafinayo barqadii ninkii baar fariisto beeniya sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka boodiyo bulaanye gajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan barwaaqa gaarne
kuceeda nolole waa hilinka nabada ummada soo hayaantay 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 harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community horumarinta caafimaad waa hilinka nabada ummada soo hayaantay 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 harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community hibilahoodu waa haqabtirida howlaha haweeniyo caruur hibilahoodu waa haqabtirida howlaha haweeniyo caruur hindisaha aqoontiyo horukaceeda nolole horukaceeda nolole waa hilinka nabada ummada soo hayaantay 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 harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community
caafimaad waa hilinka nabadda ummadda soo hayaantay 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 harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community harsanaysa maanta bulsho weynta Hounslow Somali Community